ummaddii soomaaliyeeday qabyaaladii goormay dhammaataa qarni rubucii bay maraysaa intay ku dhex dhalatay baa aabbayo u noqday qaarna wakhti aan dheerayn awow bay gaari doonaan maalinba waa shaati cusub maalinba waa midab cusub maalinba waa magacaabano hoggaamiye ah oo muuqaal cusub wata marma waa magac qabiil oo dharla mar waa jabhadeed mar waa gobolaysi mar waa kooxaysi iyo xisbiye ururo weeye sii jiido soo jiido xisbigu waa qabiil ururkuna waa qabiil kooxduna waa qabiil gobolkuna waa qabiil qabiilkuna waa qabiil war dadkii baaba oo dalkii dun oo waa la bililiqaystay oo meel walbaynu bilqannahay oo midna inagama noola haddana waan sii jecellahay nin baa halku dhig wuxuu yidhi wax waraabo u eeg buu sawiray qabyaaladna waa ku sawiray nin isku duubayoo dhunkanayuu soo saaray wuxuu yidhi aabbaha iyo awowgay adaa dilay gurigaygii iyo goydkaygiina adaa gubay waddankiina adaa iga qaxiyey welina waa ku jeclah halkii baynu maraynaa war baashayna dumisay oo ina qaxisay oo ina baabi'isay oo aakhari adduun bayna seejisay haddana aynu laab ku wadanno ciroolku kiiba ma aha caaqilku kiiba ma aha marka qaarkood culimmadu iyo wadaadku kiiba ma aha markay baasha qabiilkaa timaaddo baa waxaan idhaahdaa waxaan u malayn dadka ninka ugu yar falaash iyo biriis koolbii baa ugu jirto meelun baad maasadu ka qabataa waa baasha qabyaaladdu markay timaaddo maxaa caqligii safriya maxaa cilmi iyo diintii safriya dadku wada af macaana oo wada dhaqan xuma war ilaa goormaynu wadaynaa ikhwat alislaam waaliimaan ilaa goormaan waansamaynaa 20 sano ka badan oo maalinba weji cusub leh oo qaxiya wax dhinta mooyeen midho iyo quudan ba aan lahayn war ilaahay ha laga yaabo inta nairobi joogta baa ugu daran dadka bal makhaayadaha tag fadhi ku-dirirradana tag xiisad qabiilun baa ka socota qaabkaa dooni u yeel magacaa doonina u yaal haddaan dawlad yeelanno waa qabiil haddaan gobol yeelanno waa qabiil haddaan urur yeelanno waa qabiil bal idinkuwa kaase xataa wadaadkii hadla waxbaa qaldan la yidhaahdo waa shaabad qabiil qaranna waa ku duminnay ummaddiina waa ku qaxinnay welina dabka waan sii shideenaa warnimayo ilaaha laga baqo war adduunkii baaba'ye ummaddii baaba'daye abshir bacalla allaha u naxariistee wuu asiibay baan isleeyahay markuu yidhi qaangaadh fidnowye ubadkayaan la qabatiin bal da'daa soo koraysuun baashaad ku ababilaysaan ka daaya lacalla 20 sano waxaan ka baqayaa inay nagu gaadho 40kii sane reer bani israa'iil la yidhi 40 sanatan yatihuuna fi lard 40 sanoay wareersanaanayaan ilaa waayeelkii intii wax garanaysay ay dhammaato laakiin da'yartii baynu sii baraynaa dee cudurkii baynu tallaalaynaa oo ubadkii baynu ku abaabinaynaa warnimo ilaaha laga baxsado baashan qabiilka ee kolba qaab loo dhigayo marbashaati loo xirayo ummadda walaalayaal ha laga daayo fariinta saddexaadaan raba inaan diro ummaddii muslimka ahayd intii hore marar badan diinun baa u caafimaad qabatay iyadiina waa lagu tuntay magac diineed baa dhiiggii bilaash loogu bannaystay magac diineed baa maalkii lagu bannaystay oo lagu boobay magac diineed baa cirdigii iyo sharaftii lagu bannaystay oo haweenkii iyo furuustii lagu xalaalaystay waxba waxbuu dhaamaye tanna waa kaaga sii daran fitankii nabigu sheegay ee camyaa'a samaa uu ku magacaabay oo tudhibulcuquuli uu yidhi baynu joognaa takfiir aan xuduud lahayn masaajidii baa nabadgeli weyday salaad baa lagu badbaadi waayey sujuuddii baa la isku dilay manaabirtii baa miino la isu dhigay dadkiiba masaajidii bay ka carareen meelo badan baan masaajid damaacayn badan la aadin oo lagu leeyahay haddaad aaddo meelahaasaa lagugu dili masaajidka agtiisaa la farfadhiyaa war maxaa masaajidda dadka looga cayrinayaa waa horay soomaalidu dhihi jireen baan isleeyahay haddee qayladu masaajidkay ka yeedhay qayladu masaajidkay ka yeedhay guryihiinna ku tukado masaajidda ka fogaadaan maraynaa war masaajidda ilaahay lagu badbaadi jiray war munaafiqiin baa salaad lagu dayn jiray nin baa nabiga intii la yidhi aandilu yidhi lacallahu yusalli inuu tukadaa laga yaabaa haddana salaadda ku gaad bay maraysaa war ilaahay ha laga yaabo takfiir aan xad lahayn iyo fataawa maajina markii ahlulcilmigii iyo sultaanka seeftu jiray dad badan baa la xirxiri lahaa fatwadana laga mamnuuci lahaa oon ahal u ahayn gidaarada u fuul qowl kastoo shaada soo ururi adu waxaad unqiil ii raadisaa diinta suu dooniba ha ugu qalloocnaadee dhiig iyo naf igu bannaanan karaan markii waxaa yimaado qofku wuxuu u baahanayaa culayska uu dareemayo siduu isaga qaado muslim baa dishay daa'irada takfiirka waa inuu waasiciyaa si uu si fiican ugu galgasho oo lugaha u kala fidiyo war ilaahay ha laga yaabo ka tukada waa gaal
ka sujuudtana waa gaal masjidkuna waa xalaal in la qarxiyo miinada in la dhigana way bannaan tahay war waa diinta ilaah intaa ka yaabtaan kuwii xaramka intay galeen minooyinka kacbada ku rakibay juhaymaan baa waddanka inagala buuxa takfiirku laba weeye takfiirna waa takfiir tadayunaho kii horeen naqiinay wey takfiirna waa takfiir wadiifi oo lagu shaqaaleeyo oo shaqo iyo wadiifo gudanayo waa midka haddayna haysto markii dhaqanka fataawada aad eegto takfiir waaye markii macaamiladii iyo beenta iyo musuqmaasuqa aad aragtay iyo wax isdabamarintana taqiya shiica wey war ilaahay ha laga cabsado war dadka dhiiggooda ha la badbaadiyo war muslimka maalkooda ha la badbaadiyo war muslimka cirdigooda ha la badbaadiyo war muslimku muxuu idinka haystaa kii bannaan maraya la garan waa wax dilay lama yaqaan wax loo dilay lama yaqaan war ilaahay ha laga baqanimaya